ciidamada wato arrinkaana reer Garowe waa xishoodeen madaxweynaha waa qadariyeen waxay dhaheen doorashadaada qof iyo cod ka qabso midda kalena waqtigii aan gelin lahayd doorasho daniyo maada gelinin dowladda dhexe aan lacag 39 milyan ah oo qaadata madaxweyne ugu noqotay maandida haysata qofna gacanta kuma qabanin maanta waqtiga ku shaqeyn leed haduu ka dhacay walaalow yana isdilne teendadii ugu celi waa intuu farmaajo ku dhahay ninka imaadana hal wala xisaabtamo wuxuu qabtay Puntland hadda already dani wax uu ku faano waa haystaa doorasho qof iyo cod waa hirgeli madaxweynaha haddii waqtiga ka hili waxyaalo badan oo qaba karaa jirtay legacy ka tago caasimadaas weligeed aan laga qaxin oo magaalooyinka Soomaalida oo xagga horumarka marka la loo kuwada ugu waaweyn ku jirta hadda Garowe markaa fiiriso 15 sano ka hor ama 20 sano ka hor iyo hadda say tahay yani ajiib waay fahanta marka ani waxaan qabaa dani waa khaldan yahay haddii la dhaho waa khaldan tahayna shaati wuxuu gashanayaa oo ah muqdisho la iiga soo duulay iyo soo kursigiisa ilaashana ani waxaan qabaa Puntland iyo dadkeeda dad wax daariyin ah waa fahmi karaan meesha looga imaanayo shalay markii Cabdi Muuse iyo Abdullaahi isku dagaalayeen ma dawladda xaq ku dhex jirtay meeshan wax waaye isla ogol wax lagu wada wadi karaa dani balooniga dhexda ku aniga intaas aan qabaa dadka aragtida dani aaminsan iyo Soomaalida kale cadow ka dhigan